kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka Garmaal TV kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah Faransiiska oo iska fogeeyay in weerar military ay ugu jawaabi doonaan haddii Ruushka uu weeraro dalka Ukraine. Warka soo baxay dowladda dalkaas ayaan idiin soo gudbin doonaa. Sidoo kale qodobada warka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya wadamada Mareykanka iyo Britain oo sheegay inay jirto fursad lagu dejin karo xiisada ka dhex taagan dalalka Ruushka iyo Ukraine. War ay soo saareen labadaas dal ayaan idiin heynaa. Sidoo kale qodobada warka ku jira waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka oo sheegtay in safaaradeeda ay ka rari doonto magaalada Kiev ee caasimadda waddanka Ukraine. Haddaba sababaha arrintaasi ay u cuskanayso ayaan idiin heynaa. Sidoo kale warka waxaa ku jiri doona dowladda Ruushka oo sheegtay inay diyaar u tahay in xilligan la wada hadlo. Qodobadaasi qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garmaal TV ee ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan. Aanu ku bilownay Faransiiska ayaa waxa uu iska fogeeyay in weerar military ay ugu jawaabi doonaan haddii Ruushka uu weeraro dalka Ukraine. Xilli xiisada ka dhex taagan labada dal ee Ruushka iyo Ukraine cirka isku sii shareerayso maalmihii ugu dambeeyay, xilligan si weyn looga cabsi qabo in Ruushka uu weerar culus ku qaado dalkaasi Ukraine ayaa waxa isa soo taraya wadamada caalamka ee arrimahaasi ka falcelinaya. Faransiiska ayaa xilligan waxa uu tilmaamay inaysan jirin in weerar military ay ugu jawaabi doonaan haddii Ruushka uu weeraro dalka Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Faransiiska Jean-Yves Le Drian ayaa waxa uu sheegay in Faransiisku aanu weerar military ugu jawaabi doonin haddii Ruushka uu duulaan military ku qaado dalka Ukraine, balse waxa uu intaasi ku daray in Paris ay dhaqaale ahaan ay ka taageerto Ukraine. Le Drian waxa uu ka digay dagaal u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine inuu noqon doono musiibo qof waliba gaar ahaan musiibo ku ah Ruushka marka hore sida wadal ku dhigay. Haddii uu dagaal ka dhaco dalka Ukraine, haddii Ruushka uu soo weeraro gaaska Ukraine tusaale ahaan ma gaari doono dalalka kale ee isticmaala gaaska, ayuu u sheegay kanaalka Faransiiska ee France 5 Isniintii wareysi TV-gaasi uu siiyay, isagoo raaciyay cawaaqibta dhaqaale aad bay u adkaan doontaa in garbaha la saaro, ayuu tilmaamay. Faransiisku waxa uu rajeynayaa in madaxweyne Vladimir Putin uu run ahaantii ka fiirsado khatarta uu qaadayo haddii Ruushka uu bilaabo weerar ka dhan ah Ukraine, ayuu yiri. Le Drian waxa uu ku celceliyay in fal kasta oo Ruushka xilligan qaado oo ka dhan ah madaxbannaanida Ukrainiyaanka ay u yeeri doonto cawaaqib weyn iyo cunaqabateyn Faransiiska iyo xulafada kale ee Ukraine ee ka dhan ah Moscow. Waxaana xilligan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska uu carabka ku adkeeyay in dowladda dalkaasi aanu weerar military ugu jawaabi doonin haddii Ruushka uu duulaan military ku qaado dalka Ukraine, balse waxa uu tilmaamay in xilligan ay dowladda Faransiiska ay taageero dhaqaale haysiiso dalkaasi Ukraine. Waxaana xilligan wadamada kala duwan ee caalamka isa soo taraya baaqyada ay u jeedinayaan xukuumadda Moscow ku aadan in ay ka baaqsato weerar ay ku qaado dalka Ukraine oo xilligan la tilmaamayo in ay cirifka ay isugu jiraan in dagaal halkaasi uu ka qarxo. Waxaana xilligan la tilmaamaya in ciidamo fara badan oo dowladda Ruushka ay geysay xadka Ukraine ay la wadaagto xilligan dhaqdhaqaaq xoogan halkaasi ay ka sameynayaan. Dhinaca kalena wadamada Mareykanka iyo Britain ayaa sheegay inay jirto fursad lagu dejin karo xiisada ka dhex taagan dalalka Ruushka iyo Ukraine. Mareykanka iyo Britain ayaa waxa ay sheegeen inay jirto fursad diblomaasiyadeed oo lagu dejin karo xiisada Ukraine iyo Ruushka. Hogaamiyaasha dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska ayaana sheegay in aan weli laga rajo dhigin fursad diblomaasiyadeed oo lagu xallin karo xiisada Ukraine ka taagan, waxaana ay ka digeen in xaaladdu ay sii cakarnaato xilligan. Madaxweyne Joe Biden iyo ra'iisul wasaare Boris Johnson oo muddo 40 daqiiqadood telefoonka ku wada hadlayay waxa ay isku afgarteen inuu weli jiro door xiisada lagu dejin karo, balse Ruushka haddii uu dagaal ku qaado Ukraine waxa ay sheegeen in cawaaqib xun xilligan uu la kulmi karo. Madaxweynaha waddanka Ukraine waxa uu ku dhawaaqay maalinta Arbacada ah inay noqoto maalinta midnimada dalkaasi kadib markii ay sirdoonka Mareykanka soo jeediyeen Arbacada inay noqon karto maalinta Ruushka dagaal ku soo qaadi kara Ukraine. Dalabka ugu weyn ee Ruushka ayaa ah in Ukraine aysan weligeed ku biiri karin gaashaanbuurta NATO, balse dalalka galbeedka ayaa diidan arrinkaasi iyagoo ku doodaya in isbahaysigu uu leeyahay siyaasad soo dhaweynaysa xubno cusub. Ha yeeshee safiirka Ukraine uu fadhiyo London Vladimir Bristeko ayaa BBC-du u sheegay in dalkiisa uu aqbali karo dalabka Ruushka si xaaladda xilligan loo dejiyo.
waxaana madaxda dalalka Mareykanka iyo Britain ay carabka ku adkeeyeen in xilligan ay jirto fursad diblomaasiyadeed oo lagu dejin karo xiisadda ka dhex taagan wadamada Ukraine iyo waliba Ruushka, waxaana xilligan ay ku baaqayaan in dhaqdhaqaaqa Ruushka uu wado xilligan uu joojiyo, iyadoo digniin ay u jeediyeen xukuumadda Moscow ku aadan in cunaqabateyn ay la kulmi karaan haddii weerar ay ku qaadaan dalkaasi Ukraine. Maalinta Arbacada ayaa waxaa laga cabsi qabaa in Ruushka uu weerar culus ku qaado dalka Ukraine, iyadoona baaqyo kala duwan xilligan laga soo saarayo arrintaasi. Dhinaca kalena, dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in safaaradeeda ay ka rari doonto magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine. Mareykanka ayaa howlaha safaaradeed ee Ukraine ka rari doona caasimadda Kiev, waxaana uu u rari doonaa magaalada galbeedka ku taal ee lagu magacaabo Lviv. Xogayaha arrimaha dibadda waddanka Mareykanka Antony Blinken ayaa yiri, isaga oo soo xiganaya dardargelinta weyn ee dhismaha ciidamada Ruushka. Blinken ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in go'aanka loo qaatay in laga walaaco badqabka shaqaalaha safaaradda Kiev ee dalkaasi Ukraine. Inta badan shaqaalaha safaaradda ayaa horey loogu amray inay ka baxaan dalkaasi Ukraine, waxaana muwaadiniinta Mareykanka lagu wargeliyay in gebi ahaanba dalkaas ay isaga baxaan. Kooxdeeda iyo aniga waxaan si joogto ah u eegaynaa xaaladda amniga si aan u go'aamino marka taxadarku uu tilmaamayo isbeddelka booska, Blinken ayaa yiri, isagoo intaasi ku sii daray in Washington ay sii wadi doonto ka shaqeynta xasilooni diblomaasiyadeed ee xiisadda xilligan taagan. Mareykanka ayaa xilligan waxa uu carabka ku adkeeyay in gebi ahaanba safaaraddaasi magaalada Kiev howlihii ay ka qabanaysa ay u rari doonaan magaalada galbeedka dalkaas Ukraine dhacda lagu magacaabo Lviv, iyagoona tilmaamay in xilligan ay ka baaraandegayaan qorshaha ku aadan walaaca badqabka shaqaalaha safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay gudaha dalkaas Ukraine. Waxaana maalmihii lasoo dhaafay baa inta badan shaqaalaha safaaradda horey loogu sii amray inay ka baxaan dalka Ukraine, waxaana muwaadiniinta Mareykanka gebi ahaantoodba looga digayaa inay kusii sugnaadaan gudaha dalkaas Ukraine oo marba marka ka dambeysa xaaladeeda ay sii cakrimayso. Dhinaca kalena, dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay diyaar u tahay in la wada hadlo. Afhayeenka Kremlin-ka Dmitry Peskov ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu diyaar u yahay in la wada hadlo, isagoo intaasi ku sii daray in qalalaasaha Ukraine uu yahay qayb ka mid ah walaacyada amni ee waaweyn ee Ruushka. Ugu horreyntii, madaxweyne Putin waxa uu had iyo jeerba dalbanayay wada hadal iyo diblomaasiyad. Peskov ayaa waxa uu sheegay CNN Ukraine waa qayb ka mid ah dhibaatada weyn ee damaanad qaadka amniga ee Ruushka. Dabcan, madaxweyne Putin waxa uu diyaar u yahay in uu wada hadlo, ayuu yiri. Horaantii maanta, wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa waxa uu sheegay Putin inuu arkay fursad wada hadallo diblomaasiyadeed oo ay reer galbeedka ay ka yeelanayaan arrimaha ammaanka ee Ruushka, isagoo sheegay inuu ku taliyay in dadaaladan oo kale la sii wado xilligan. Waxaana xukuumadda Moscow ay sheegtay inay diyaar u tahay xilli waliba in wada hadal ay sameyso. Guud ahaan daawadayaal, waxaa intaasi kusoo gabagabeynaya wararkii aad kala socoteen Garmaal TV. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.